وعنا وناكسن داوديال كنا سو دوادا بيجكا يوتيوب كا عاصمة جنرال oo aad kaga bogotaan wararkii warbixinadii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya iyo dalalka dariska warbixintan idin haynana waxa ay ku saabsan tahay dibadbaxyo rabshado wata oo hareeyay magaalada Jigjiga iyo Cabdi Ilay oo aan loogeyn halka jaan iyo cirib oo dhigay iyo wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya magaalada Jigjiga waxa qasan xaaladda magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ciidamo ka socda dawladda federaalka Itoobiya ayaa la wareegay xarumaha ugu ee maamulkaasi kadib markii ay isku dhaceen madaxweynaha maamulkaasi Cabdi Ilay wararkii ugu dambeeyay ee laga helay halkaas waxa ay sheegayaan in shacab badan ay xireen jidadka waaweyn ee Jigjiga iyaga oo taageersan madaxweynaha maamulkaasi shacabka ayaa la arkaya iyaga oo budad iyo dhagaxaan ku tuuraya xarumaha ay la wareegeen ciidamada Itoobiya iyo gawaarida jidadka ay dhigteen sidoo kale waxa ay gubeen kaniisad ku taalay magaalada kadib markii la qabadsiiyay dab waxaana haatan muuqata in xaaladu meel xun ay sii gaarayso siyaasiyiinta deegaankaasi ka soo jeeda ayaa maalin dhaweyto kulan ku yeeshay diridhaba waxayna shacabku ugu baaqeen inay isdejiyaan xaaladana lagu soo celinayo sidoo hore siyaasiyiintan ayaa ku baaqay in aan la weerarin qowmiyadaha kale ee ku nool magaalada Jigjiga ee caasimadda maamulkaasi xaaladda ayaa haatan mid kacsan welina waxaa gudaha magaalada ku jira ciidamo tiro badan oo ka socda dawladda Itoobiya xiisadan ayaa bilaabatay markii isfahmi waayeen dawladda Itoobiya iyo madaxweynaha maamulkaasi waxaana Itoobiya ay doonaysaa inay xilka ka tuurto Cabdi Ilay ayaa garab weyn ka heliyay ciidamada New Police ee maamulkaas uu leeyahay ayaa xaafadaha qaar ee magaaladaasi laga maqlayaa rasaas goosgoosa taageerayaasha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyaga oo dhigaya dibadbaxyo rabshado wata waxaana wadooyinka lagu gubiyay taayiro qiic iyo uuracaya cirka isku shareeray waxaana la soo sheegayaa inay jirto xaalad billiqaa sidoo kale waxa jiray isku day ay baarlamaan goboleedka Soomaalida Itoobiya ay ku doonayeen in madax banaani ama gooni ugoosid ay ku dhawaaqaan lama oga halka jaani cirib uu dhigay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kaasi oo wali ku jira gudaha magaalada Jigjiga ma jirto wax war oo ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ee ku aadan xaaladda qasan ee ka jirta magaalada Jigjiga intaas ayaan daawada ku soo gabagabeynaa warbixintaynu kaga hadlaynay dibadbaxyo rabshado wata oo hareeyay magaalada Jigjiga iyo Cabdi Ilay oo aan la garanayn halka jaan iyo cirib uu dhigay balse uu ku guda jiro magaalada Jigjiga daawadaasha ku cusub page-kana YouTube-ka caasimada Channel waxaan ka codsanaynaa inaysan hilmaamin subscribe-ka like-ga share-ka si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ay ula socdaan insha Allah